oo ka tirsan gobolka Togdheer ayuu xisbiga kulmiye ka sameeyay isu soo bax balaaran taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada Baledhig ayaa si weyn u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee kala qayb galay isu soo baxaasi saaka waxaana halkaasi dadka kala hadlay madax badan oo ka socota xisbiga kulmiye waxaanu ka soconaa xisbiga kulmiye waxaanu ballan idinku qaadaynaa in ay meelaha ugu horeeya ee wax laga qabto ee la dhiso ee waxbarashadeeda la dhiso ee caafimaadkeeda la dhiso ee horumarkeeda iyo biyaheeda la dhiso taana waxaa muujinaya anigu waa magaaladan u dhashay iyadoo oo aanan dawladda aanan la kaashanayn ayaanu iskuulka taageeraa waxaanu soo diray surveygii biyaha waxaanu soo diray oo ku hawl jiraa dugsigii sare inaanu dhammaystiro maxaa haddaba idinla gudboon idinna inaad maanta ku ciil baxdaan codkiina oo advoodkiina siisaan xisbiga kulmiye geesta kale wafdi balaaran oo uu hogaaminayay xildhibaan Cali Mareexaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa socdaal ku gaaray degmada Qoryaale waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay dadka deegaanka Qoryaale mar uu khudbadeynayay dadkaasi ayaa hadalkiisa waxa kamid ahaa Bashir Ibrahim Universal TV Burco